وحسكم الديدة ما يسفهم لا عدة وحسكوها يصدق أما يسفهم لا أما خلافه قد هيا ديو جنبه ودتك هلكم فرديا وملحظة قرنك وسياسيين تا ودتك إليت كا ودن كانوا سرية أما كان أساسها هاتو أما هاتو ملح كلا أما سياسيين هذا قبضة يويلك قال كعيد جوكتا أما كسماية جوكتا أما اللغة جوكتا دقال سمو قبان اسم النعبة دول النمو ويربا طلقوا إنه هرقوا مرة ويربا إلا هالشيء هذا ويربان الدنيا لا ترتب عدة إسحاق ستوا عنك عدة للربينا نشينا سدت كاسين نروفي عن ويرا نوعنك عدة لجربينا الصومالي تصاريسو سدت دل كان هرقوا لهم مرة لهين وايدين إن تزت مادين وكفر أحسن هاي لكن وإن دوجاتان مسؤولية حمار سلطة مسلمات إن كانت تزت مادين وذل كانوا يفكرون وهذا كان سويت مادين إن تصارك النقطان سيد أوقف فضود أو لوقف حين كرام ثلاثة دال كان دب لوقف حسين الله إيه دول النمذي وين مقطع رجدي أمة الصومالية ويش مقطع شعب كي دولة ويسكو حرب الرباط ضدك الصومالية وحيد دريما يعني ترتيب يترتيبهان كرامة أمة الصومالية وسوانا غنيسو خسارة أوقف بدن أو النهرية الله قدام بنقول هان دونتو تاريخ دون يقول دونتو ما أنيجا يريد الوزراء يوزير هذا كل جن وعيتاي هدي أن فرصة نقول فائدين وينهم الصومالي قف والبون نجم إذا وإنه أجادام مسؤولية أي كسران دلكن سيد الله سبحانه وتعالى هدي هذيكوا ست مالان إن كلا يويرته dadka la tusaaleeyo iskhilaafka iimaan lagu bedelo waxaan aaminsanahay dalkan inuu rajo leeyahay waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano haddii dalkeenu uu xasilo kulligeen nolosheenu intaan way ka wanaagsanaanaysaa haddii dalkeenu uu hagaago carruurteenu waxay helaysaa waxbarasho isbitaallo nabad adduunyada la tartamayaan لكن هدي إنتنا المجال الحمر كنور وحتى هالك جوبت هدي جد كأن مرنا بقرينا لقول على النايم هدي أنا هبين كسر أنكر هدي مكان حنوسنا نسبتها كذكر هدي نقالها أن سميسنا ميل أن فلان نوران أن هيسن نلاش كحون تاز معيدا وما حين نلاش تاز كحون إنتي نالكم فددا وإنتي لجربي إني جيل كقدم بيا Soomaaliya ذا كون أكثر وبيبيان أنت أن هالكن سقط تمد وأنت أن كسر خدي إن عند اسم Soomaaliya ذا حقنا لكوله ميان سقط يدنا هذا أنت أن من هاي أنت أن نقول ده أو نجمعك
inaan nahay intii ku saaqsaday inaan dhisno Soomaaliya xaq nool kugu lahaa waxaan idin sheegayaa idinkugu bishaareynaayaa boqolkiiba 75 ku dhawaad haddaanayba intaas ahayn dadka Soomaaliyeed waa dad ay da'doodu ka yar tahay 30 sano waxaan idin sheegayaa marka arrinkaasi waxa uu ka turjumayaa kow si aan adduunyada ula tartanno inaan haysano fursad aan kula tartanno inaan leenahay dhalinyaro boqolkiiba 75 ka ah dadka Soomaaliyeed tiradooda waxa ay tahay fursad weyn oo dalkani uu rajo weyn ku leeyahay in dib loogu dhiso laakiin in boqolkiiba 75 ay dad da'yar yihiin waxa ay leedahay khatar weyn khatarta ay leedahay waxa ay tahay haddaanay lahayn jaamacad ay dhigtaan markay jaamacad ka soo baxaan aanay shaqo helin haddaanay dalkooda rajo arkin waxaa badanaya dagaalka waxaa badanaya musuqmaasuqa waxaa badanaya badaha ay carruurteenu ku dhacaya sidaas aanay noogu dhicin marka dadkaas dhalinta yar cidii laga rabay inay gacanta u geliso Soomaaliya ka wanaagsan tan maanta aan ku jirno soo idinka ma aha soo annaka ma aha soo kulligeen ma aha waa inaan isku daynaa marka inaan bilowno jidka lagu dhisi lahaa Soomaaliya ka duwan Soomaaliyada maanta aan joogno isku daalnaya maxaa inoo dana inaan isu dulqaadano waxaa inoo dana inaan ilaahay u noqono waxaa inoo dana inaan ilaahay cafis weydiisano waxaa inoo dana inaan aqbalno dalka inaan wada leenahay waxaa inoo dana in danta guud laga hormariyo danta gaarka waxaa inoo dan ah in qarannimada laga hormariyo qabyaalada waxaa inoo dan ah in kala cabsashada iyo beenta aan ku bedelno inaan weji furan isugu nimaadno runtana isu sheegno waxaa inoo dan ah inaan taariikhda mugdiga aheyd oo na soo martay ku dhawaad 30 sano aan ku bedelno taariikhda waxaa inoo dan ah inaan aqbalno in Soomaaliyada maanta aan haysano ama waddankan annagu aan haysano uu yahay dalka keliya oo aan leenahay dal kale meel looma jiro dalkeenni waa kan dadkeennina waa kuwan meel walbood adduunka soo martid marka ugu dambaysa dalkaada ku soo noqonaysa si dalkeennu uu ahaado marka dal wanaagsan cid inoo dhisaysa oo kale ma jirta innagu waa inaan dhisana si markaan dalka u dhisano oon xooggeenna isugu geyno haddii khilaafaad uu jiro waa inaan isu nimaadno oon heshiinaa xukuumadda madaxweynaha iyo annagu albaabadeennu waa furan yihiin diyaar ayaan u nahay inaan idin dhegaysano laakiin idinkana mas-uuliyad baa idin saaran ugu dambayntii waxaan rabaa maadaama aad halkan isugu timaadeen maadaama dalkeennu ay soo dilootay dagaallo badan iyo khilaaf maadaama maanta ay rajo ay muuqato maadaama iftiin yar uu muuqdo waxaan rabaa inaan aniga iyo golaha wasiirada iyo madaxweynahaba inaan iskula dardaaranno inaan maalin walba xasuusnaano mas-uuliyadda aada noo dhiibateen inay tahay ammaanad idinku aada noo dhiibteen waan diyaar u nahay inaad nagula xisaabtantaan maalin walbood rabtaan inaad nala xisaabtantaanna waxaan diyaar u nahay inaan idinla fadhiisano idinka waxaan kula dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed iyo dalku waxa uu ka kooban yahay dad idinka ah walaalihiina carruurtiina ah saaxiibadiina dadka Soomaaliyeed waa dad aad u yar oo isgaranayo kulligood waa inaad dhidibada u astaan sida dadka la isugu keeni lahaa kuweenan siyaasiyiinta madaxda ama kuwa hadda aan xukunka joogin waxaan kula dardaarmayaa haddii aad rabtid Soomaaliya inaad berito madax ka noqotid waa inaad ka sii shaqaysaa dalkii aad madaxda ka noqon lahayd haddii aad rabtid inaad u timaadid kursi aad berri ummadaada ku maamusho waa inaad sii bilowdaa dhagaxyadii lagu dhisi lahaa inaad sii dhistid
muhiima in la isu dulqaato la ogaado adduunyadu inay nala yaabtay carruurteenna ay badaha ku dhacayaan dalkeenna isagoo khayraad ka buuxo ummadeenna ay gaajo u dhimanayaan inay abaara soo noqnoqonayaan oo na dilooday iyadoo biyuhu ay dhulka hoostiisa waxyar u jiraan isku daalnaya maxaa inoo dan waxaa inoo dan ah inaan ka baxno dariiqa hore aan ku jirno waxaan diyaar u nahay inaan jeexno dariiq cusub waxaa jirta fursaddii dariiqaas lagu mari lahaa waxaan rabaa inaan gaxadna siisaan waxaan rabaa inaad ummadda soomaaliyeed isu keentaan waxaan rabaa inaan is-afino waa bil ramadaan waa inaan dalkan u ducaynaa annaguna ducaysannaa waa